kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayno Safwaan Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah fanaaniinta ku nool magaalada Kismaayo kana tirsan kooxda Heegan ee ciidanka booliska Jubbaland. Fanaanka ayaa waxaan ka waraysan doonaa marka koowaad taariikhda safaneed iyo waliba sidoo kale heesaha uu qaaday qisooyinka iyo waxyaabaha ay xambaarsan yihiin. Safwaan kusoo dhawow marka hore Wama TV. waa mahadsantiin Wama TV. magacaygu waa Safwaan Yare. waxaan ka mid ahay kooxda Heegan ee booliska maamul goboleedka Jubbaland. casuumaadtiinana aad iyo aad ugu mahadsantiin. waa mahadsantahay waqtiga adiguna sidoo kale aadna siisay waa kaaga mahadcelinayaa. marka hore Safwaan waa kuma? Safwaan waa aniga waa fanaaniinta Soomaaliyeed ka mid ah khaasatan fanaaniinta maamul goboleedka Jubbaland. insha Allah waxaan jeclahay intii taqaaniyo in kale oo ka badan inay baran doonto Safwaan. waa gartay haddii bal mar si yar oo kooban aad nooga waranto aad u koobto taariikh nololeedkaaga, meesha ku dhalatay, meesha ku barbaartay, meesha wax ku soo baratay iyo waliba xilliga fanka soo gashay. runtii aniga waxaan ku dhashay magaalada Kismaayo aan joogaa haddaan ku dhashay, laakiin noloshayda barna waxaan ku soo koray Kenya. qaybka kale ka mid ahna waxaan joogi jiray Kismaayo. goormay aad ku biirtay fanka? fanka waxaan ku biiray sanadii 2000 iyo adiga 18 oo waxaan ku bilaabay kooxda hadda aan ka tirsanahay ee kooxdii Heegan. ayaad ku bilowday? ha. maxaa dooratay baad isdhihi kartaa inaad fanaan noqoto? waxaan ku doortay hubbiga horta ilaa yaraantayda waan jeclaa inaan mar un hayso oo fanaaniinta Soomaaliyeed ka mid ah oo codkiisa ku cilbaxay aan ahay. riyadii aan muddo badan ku taamayeen oo ay hirgasho. in badan oo ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed marka hore fanka waxay ku soo galaan si aan ka fiirsasho lahayn iyo inay qaadaan mararka qaar heesa aysan lahayn. bal adigu sidii aad ku bilowday iyo sidii kuugu dhalatay inaad fanaan noqoto nooga war. horta fankani waxaan ugu soo biiray tan hore kuugu sheegay jaceyl aan u qabo inaan marun fanaan noqdo. wayna dhacdaa heeso aadan lahayn inaan qaato, laakiin heesaha aadan lahaybo waa heesa aad soo cusboonaysiinayso oo fanaaniin hore u qaadeen oo aad hadda dhalinyarada waqtigaa joogto aad haddana dib u xasuusinayso. marka heesa aan leeyahayna way jiraan, aniga gaar aan leeyahay kuwa kale oo aan dib u qaaday oo cusboonaysiina way jiraan. waa gartay bal mid ka mid ah heesahaaga adiga aad leedahay oo aad qaaday haddaad nala wadaagto. hees ka hadlayso hees la dhaho Sihaam oo ka hadlayso adi dhammaan gabdhaha Soomaaliyeed iyo waagoodii hore qaabkii loo doonan jiray, wixii Soomaali ahaan wax looga bixin jiray iyo sharaftoodii iyo yaradkii iyo qiimaha ay lahaayeen martabaday joogeen. hees ka hadlayso waana heesaha aan aad ugu jeclahay heesayga. waa gartay heestaa goorma qaaday? heestaas adiga 2020. waa maxay qisada ugu dhalisay heestaas inaad qaado ama ereyada qofka iska leh ee sameeyey ay maaragtay keentay inuu sameeyo maxay tahay? yani qisada ay heestaa leedahay maxay tahay? sidee ku imaatay? heesta wallaahi hadda qiso gaar ah ay xambaarsan tahay
ma jiraan, laakiin waa hees guud ahaan adiga ka sheekeynayso qaabka gabdhaha loo doonan jiray iyo sida hadda xaaladda hadda aan taaganahay adigu waa la socotaa. isbarbardhig samaynaysaa. haa hadda ereyada yaa iska leh? ereyada waxaa leh maxamed cabdi qunyar loo yaqaano maan aloon, laxankana waxaa leh la foolyare isagana loo yaqaano maxamed xasan xuseen, iyo muusiga uu leeyahay nuur xasan baana macalinkayga faka. abwaan nuur baana. haa haye bal heestaas aan eegno iyo Safwan.
waa mahadsan tahay Safwaan iyo waliba heestaas Sihaam ee aad sida wanaagsan aad noogu luqaysay aniga iyo daawadayaasha waan kaaga mahadcelinaynaa sidee bay ku imaataa isleedahay heestan marka aad yani aad cabirayso isbarbardhigga haweenkii hore iyo haweenka hadda jooga hadda wasaad heesta ereyadeeda ka dhigaysanaysay haweenkii hore qaabkii loo doonan jiray boqor geela fardo qori waxbaa laga bixin jiray laakiin haweenka hadda joogo waaba sheekada waaba qudbasiro iyo waxyaabo noocaas marka isku si maahan xataa gabadha waxa laga yaabaa si kale iyadoona reerkeeda wixii ogeen inay banaanka laga guursado marka saas way ku kala duwan yihiin boqolkiiba boqol waa gurwa kii hore marka waxa leedahay kii hore wanaagsan boqolkiiba boqol kii hore wanaagsanaa daawadayaal heestaas ugu dambeysay qaybtii koowaad ee waraysigii gaarka ahaa ee aan la yeelanay Safwaan Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah fanaaniinta kooxda Hegan ee Jubbaland qaasatan magaalada Kismaayo qaybta labaad ee waraysigan waxaan ku faaqidi doonaa ama ku falanqeyn doonaa suugaan badan oo fanaanka uu leeyahay haddii ay baydmo waxaana si toos ah aad ugala socotaan TV-ga Wama TV dhanka farsamada iyo isku dubaridka waraysigan gaarka ana waxaa sameeyay saaxiibkay Sharma Arke Mahdi Cabdi sidoo kale muuqaalkan quruxda badan ee aan halkan idinka soo gudbinayno waa hoteelka Haldoor oo ka mid ah hoteelada casriga ah ee ku yaala magaalada Kismaayo inta ku kulmayno waraysi kan lamid ah waxaan kaga tageynaa sidaas nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.